بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. anigoo ah abwaan Sidiiq Sheekh Faarax Gabar waxaan ku sugannahay waa magaalada Oslo iyo studio-ga guud ee saxaafadda guud ahaan iyo gaar ahaan ba waxa halkan lagu soo booqday maanta aqoon-yahan Saleebaan Aadan Maxamed. Saleebaan waxa uu ka mid yahay aqoon-yahaninta iyo mas'uuliyiinta ugu sareysa beesha rugcadaaga ah ee ahaan jirtay boqortooyinkii ugu da'da weynaa waxa ariga Soomaaliya gaar ahaan Somaliland ee la yiraahdo magaalada aqoon-yahan Saleebaan waxa weeye mas'uuliyiinta sareysan idin sheegay maanta isagoo booqasho gaaran ugu yimi studio-gan saxaafadda guud ee magaalada Oslo dalka Norway. waxaan filayaa Saleebaan waxa uu kulli maanta la socdaa waa arin muhiim ah, bal waxaan ku soo dhaweynayaa saxaafadda isaga ayaana inoo faahfaahin doona ujeedada booqashada uu noogu yimaado. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مركور الصديق وحان واكو سلامة يا آد بان كاغا مهد عيدين يا وقلان شيا ديغا وقلاتين إنا ديغو سو دويسو مكان كان قروح دبادان ميدياها waxaan kaloo mahad u celinayaa kamaradayaasha duubaya macluumaadka kan baahsan marka ugu horeysa magacaygu Sadiiq oo sheegtay waa Saleebaan Aadan Maxamed. waxaan ka mid ahay aqoon-yahanada ku dhaqan qaaradda Yurub khusuusan wadamada Scandinavian-ka la isku yiraahdo wadanka Norway ka tirsan beesha magaadle isla mar ahaantaana ka mid ah mas'uuliyiinta beesha kuwooda muxuu ahaayay ay ka godo talada reerku mihii dadka inta badan caadeysta ama laga dhaxarko ee saxaafadda jamhuuriyadda Somaliland macluumaadka madiyada kala duwan ama tviyada kala duwan. in fact waxa maanta ay soo kiciyay oo arrin aan u arkay inay tahay muhiim in aan wax iska weydiino oo laga hadlo oo lagu cabiro aaraahda aan ka qabno arrinka isaga ah. صديقه وساد ولا سعوتان با waxaan nahay qaran Somaliland waxa ilaahay mahadiya inuu yahay qaran amnigiisii sugtay haykalkii dawladnimo sugay kala dambeyntii taalo meel walba loo kala soocan yahay shacab iyo xukuumad waan ilaahay mahadiya marka loo eego wadamo badan oo jaarka marka loo eego waxyaabaha halka ka taagan oo ilaahay loogu mahadnaqo insaankuna hadduu amni iyo kala dambeyn iyo rule of order uu waayo jiritaankiisa nololeed waxba kama jiraan. marka waxaan ka mahadinayaa mar walba amniga dalka aan ka haysano. marka ugu horeysa waxa weeyaan arrinkan wuxuu daaran yahay oo igu maqaalaa waxa ka dhacay buurta gacan libaax shir loogu magac daray shirka wada tashiga beesha garxajis oo kamid ah beelaha Somaliland ugu waaweyn kuwa kamid ah. dabcan waxaan u dhabagalay maxay tahay muhiimadda shirkani maadaama qaran jiro oo system iyo dastuuriyo uu jiro hay'ad dastuuriya maxay tahay shirka beeluhu ay qabanayaan. dabcan shirku waxay u kala bixi karaan mid masiirka beesha gudihiisa wax la iska weydiinayo dhibaabaha dadka dhaxdiisa israacooda wax wada qabsigooda dan wadaagnimadooda ummadaha kale jaarka sidii sharafta leh ay uga noolaan lahaayeen shirar lagu xoojin lagaga wada hadlayo ayaa beeshu ka wada hadli kartaa. dabcan waxa mararka qaar kood dhici kara hadday dhacdo saluug siyaasi ah waxa jira dariiqooyin in fact loo maro oo isaga naftigiisu ay tahay mas'uuliyadda koowaad inuu ku ekaado nidaam asluubaysan nidaam waafaqsan sharciga wadanka kala dambeyn iyo ixtiraam. waxaan u arkay shirkaas markii aan akhriyay inuu ahaa mid cabatin ay beeshu ka muujinaysay jiritaanka Somaliland khusuusan habka wax wada qaybsiga ama saluug siyaasi ay beeshu in fact ay tabanaysay. dabcan way taban karaan beeluhu ama ha noqoto beelaha garxajis ee buurta ku shiray ama kuwa bariga kale ha noqoto
ama kuwa galbeedka ha noqoto ama dhaxda ha noqoto dabcan cid kasta way saliwi kartaa maamul kasto adduunka ka jira ama ha noqoto khaliij ama ha noqoto yurub ama ha noqoto dowladaha kale waaweyn Mareykanka iyo wixii la midka meel kasta shucuub kasta oo maamul ku hoos nool abatin siyaasadeed way leedahay abatiga siyaasiga waxa la doonayaa inuu waafaqsan dastuurka inuu waafaqsan yahay muxuu ahaayay midaan abuureyn khalkhal siyaasadeed iyo nabadgelyo midaan abuureynin in fact markii aan akhriyay intaan shirka la soo gabagabin waxyaabihii lagaga hadlayay wuxuu igu muuqday midani ugu jirta bulshooyinka reer Somaliland inay ku baraarugto inay wax wada leedahay in la fahansiyo ayay sheekha masaajidka wax ka wacdinaya haddii aanu bacda salaadaha ummadii kala duwaneyd ee tacabkooda shaqo maalintii ku mashquulsanaa aanu gelinka dambe ama xilliyada qaar isugu yeedho aanu xasuusin jiritaanka nolosha iyo alla ka cabsiga aanu xasuusin ummad iska waxay noqonaysaa iska baadi ay iska noqonaysaa طبعا tani waxay ahayd madal haddaan ka tirsanahay beesha magaale aan u arkayay mid noo hadasha ama dadka siyaasiyan maamulada jira ee Somaliland ama kuwa ha noqoto ama kuwa hadda ha noqotee tabashada siyaasadeed ka dareemaya ee markaa aanay suura gelin ama inay shir guud u cilaamiyaan ay qabtaan طبعا شركة ولا وكلا ورين كرا أما أي لكل من حكومته مركز شري أما حكومة مركز تتا إن لكل من أنا ماشى مركز سورة جلين وحنو أركين الشير عن قد حكي سكلي كوكو منين كوكو بن بلدات كرهير سومالي لان إما دقد تجوحي تبش السياسة ذله إن أحد لان أمام ملكي حكومة شرتاي رهضان وحي نولم وقتها إن لا أبو رتشوي يدل ودلي هاي نظام كاللجوء وضيالن كرانا وحويان ونظام كالنوع أي النوع أو وظف وحيسن وينين ماشي لقوم مثلاً والبحوية إنه الدولة ده هي سياسة مسير كذلك إنه قريب كل هذا ووحلا قوم مار معنا وصدوي in fact لكن وحيسوي الدين له عد كستا أو عبطن سياسة له حدي عبطن كود إيجا كو إكادو واضح لكن هدي ماشي عزومة تمادو ومدح دقميد ومدك للعزومه أما معارض هذين أما محافظ هذين لو وضحت له شركي لسوق بجبيه أو عمل لقص وصاروا تماشوا وكترتها وحوي عمود وين اللي بقى بحان كو بيشا شركة قبضة تميدو خاصة وآيه هذا يتبشر هذا أكو عبريسو لبو هدي أمو قطو إيجا نفتي جوده inay jirto cid kale aan hadlayn oo qudhoodu tabanaya wax inay dareensiiso maamulka iyo xukuumadda jirta markaa war annagana na arka waxbaanu tabanaynaa kuwa naga sii hooseeyay maanta halkan soo gaari la'ana hadda ogaalkeeda lahaada in cabatunku maanta inta kale aan ku ekayn waa la soo wada dhaweynaya xukuumadduna waa qasab inay u dhagan nuglaanayso dadka iyadoo ay maamusho cabatinkana ay dhageysato capacity-ga iyo awoodana dawladdu waa yeelan kartaa inay dadkeeda dhageyso way waxay ku tahay وشعوبتها يا دلكيده تا halkaanu ka filaynay waxa soo baxay sanu dogsoonahay Somaliland waxay ku dhisan tahay 1993 kii lagu dhisay awood qaybsi beelaysan oo aan laakiin asxaab ku dhisnayn beel walba waxba iska soo gurtay maamul hay'adeed baa dawlad baa la taagay golo guurti baa la dhisay golo baarlamaan baa la dhisay golo fulineed baa la dhisay shaqaale weyn la qaybsaday nidaam qabiileed ayuu ku salaysnaa markii dambe waxa markii maamulka wanaagsanaaday amnigii la sugay dadkii dawladnimada fahmay la aaminay Somalilandnimadii ayaa mujtamaci wuxuu ka fakiray ma uga talaabsanaa nidaamkii qabaliga ahaa hab saxaabeed ama hab siyaasadeed hab muxuu asxaabeed iyo xisbiyo si looga maarmo inaan cabatin siyaasadeed iyo wax kala riixasho beeluhu aanu marnaba imanin taasaa kaliftay markaa in asxaabtii la sameeyo siyaasadaha lagu kala roonaado doorashada lagu kala bato wax la kala wax haysto si kastaba ha noqoto ma sha Allah tabarakallah aad baan hadaan ka beelahan u soo dhaweynay taa inkastoo aanan marka runta la eego saluug weyn nagu jira maxaa yeelay shirka waa fadhinay 1993 iyo maanta oo 2017 oo la garan karayo inta maartay 8 iyo inta soo sanadood waa dareemi karaysa inta ka soo wareegtay wax maamulka reer Soomaaliland haday noqoto golo fulineed golo sharci dejineed golo guurti iyo shaqaale weyne
iyo hab siyaasadeed beesha مثلا ma jirto haddana cabatankaygu mar walba wuxuu ku dhisnaa war dadkan waxba idinka dhaxeeya dal baa idinka dhaxeeya dad baa idinka dhaxeeya dhaqan baa idinka dhaxeeya wax soo haasha ka dhaxeeya nidaam salmiya iyo wada hadal iyo atafaahum insha Allah biid la ku raadsada waqtigeedana waan la sugaynay laakiin mar hadday dhacday in beesha Garxajis ay ilaamisay war wax tabasha jirta mid annagu aanu tabanayno iyo mid beelaha Soomaaliland ba ay tabanayaan waxa ku jiray qodob kamid ah oo isoo kiciye qodobadii markay kuwoodii ka hadleen dawladdu ha u furta dastuurka si ay uga mid noqdaan dawladda Soomaaliland ogana qayb galaan hay'adaheeda kala gadisan ee dastuuriga ah labada beelood ee darafka waa labada beelood darafka Somaliland waa qabiil bay tahay waa magacaabayna dhinaca waxa degan dhul bahanti cid xukuumadda kaga badani ma jirto waana mucaarad dhinaca waxa jooga Warsangelis cid kaga badani ma jirto waana mucaarad dhinaca waxa jooga Ciisiye Warsangeli cid kaga badani ma jirto oga manfac badani ma jirto muxuu ahay intaba way jirtaa sadiiqo runta marka la doonayo samaroonta waa beelaha galbeedka shirku magacaabay anigu san ku beelaha galbeedka waxaan u aqaanaa darafyada waxaan u aqaanaa darafka bari iyo darafka galbeed labada darafna cid uga badani maanta haba yaraatee ma jirto maamulka Somaliland ee shaqeynaya ee jira bal ka waran ninkan inta midna ku lahayn aan cabanayn aan dagaalamayn aan qori wadan ducaynaya taageersan jiritaanka doonaya liibaanteeda raba isku dubadceeda raba waliba ka shaqeynaya labadii ummadaha ka tirsan deegaankaaba war isfahma war kala tagina war isu tanaasula war aan leeyahay ka faa'iideysanin aan ku soo shirkii qodobkii ahaa labada beelood hal loo furo dastuurka nimankan awowga u ahaa Garxajis haddii ay ka cabanayaan cadaalad darro iyo inaan maamulka Soomaaliland waxba ku lahayn maanta cadaalad darro iga taliyeen anoo beeshii magaalada igu casuumeen shirkii saan uga marqaati noqdo oo suldaankayga uga marqaati noqdo boqorkayga uga marqaati noqdo waxa meesha ka soo baxaya inay tahay wax Soomaaliland u dana waxay ku soo gooyeen oo ku soo gabagabeeyeen in magaalada la xaqiro la yiraahdo ha loo furo beelaha darafka dalka war dalku ma yuu ka xilmsaan iga xidhan yahay war dalku aanu iga xidhan yahay ilaahay wuxuu in Allah yuhibbul haqq waxaan leeyahay ana aad uga soo horjeeda waan aad u cambaareynaya fakar kasta oo khaldan oo lagu doodsiyo xuquuq shacbiyana oo dadka Soomaaliland dalka waa in la wada leeyahay waa in la wada dhiso waa in Garxajis ogaada naftigooda maalin bay soo mari kartaa xukunka maanta ay qolada kala hayso maalin kale ayay soo mari kartaa hadday maanta cadaalad darro ka taliyeen oo ay magaalada meeshii ka saareen oo ay beelo darafo ka buuxa maanta u fureen bari markay xukunkii qabsaan maxaa dhici doona طبعا waxa dhici doona kuwa maanta laga cabanayo sidooda ayana looga caban doona saasaan cid kasta loo xaqiri doona waxaan leeyahay oo aan dalbaya anoo ku hadlaya aqoonyahanadii beesha magaadle anoo ku hadlaya wax garadkii beesha magaadle anoo ku hadlaya odayaashii beesha magaadle aad baan ugu hanweynaa shirkaas aad baan ugu hanweynaa in loo hadlo aad baan ugu hanweynaa in magaadle loo hadlo maanta waxa cadaatay inay dantiina ka hadasheen iyo laba hareeraha waa in laga apologize waa in laga raali geliyo waa in qodobka dib loo saxo waa in laga saaro beelihii darafka waa in hadii la doonayo waxa aday doonaysan inay xaqiiqad noqoto shirka qabateen inuu ku saleysan yahay wuxuu raadin iyo dadka wadanka wada dega oo aan xuquuqdii u sinayn iyo saxid siyaasiyan oo wadanka laga saxayo qodobkii caynka ahaa ee lagu xaqiray waa in dib looga noqdo oo la yiraahdo waa ka raali gelina beelweynta magaalada Ameerika adduunka joogan waxaanu dib u saxaynaa halofro dastuurka beelaha Somaliland ee qaybta yar kaga jira iyo kuwan kaba soo xaadirinba markaas aan hooyi karaa inta waxaan ku soo gabagabeynayaa dalku wayna wada deeqaa hawlo badan baa iska jira siyaasadda murugsan baa jira ilaahay in lagu mahadnaqo amniga la haysto iyo siyaasadda la haysto iyo kala dambeynta la haysto ee aan jaarkiina haysan habeen kasta qaraxa iyo bambada iyo dagaalka iyo colaadu ka jirto ilaahay wuxuu yiri qofkan ku shukri naqin
nimcada aan siiyey hadda beddelkeedu waa maxay waa colaad kala yaac inaad ku shukri noqdaan oo aad marka hore xasuusataan inta idinku hoos nool cidda dhibban cidda qatan cidda albaabku ka xidhan yahay siyaasiyana dalka u hagaajisaan iskuna raacdaan fahna ka yeelataan sida ugu wanaagsan ee shucuubtuna dalka u wada yeelato siyaasad stable loo dejiyo ayaan doonaynaa insha Allah biidnillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan mar labaad aan adagu mahad celinayaa Mr. Sadiq oo iyo madaxda kale la joogta ee meediyaha oo iga ogolaaday fursadatan aad baan idinku mahad celinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad buu mahadsan yahay Saleebaan Aadan Maxamed oo ka hadlayay isagoo ka mid ah aqoon-yahanada guud iyo mas-uuliyiinta beeshiisa oo ah beesha magaale oo ah boqortooyo soo jireen oo isagoo tilmaamay xaqiiqada dhabtaana kala hadlaya dulucdii ujeedaduna ay ahayd in ay beeshu hesho xaqeeda iyo xaquuqdeeda isaga oo ku faraxsan horumarka ay gaadhay jamhuuriyadda Somaliland waxaan halka kusoo gabagabaynaynaa waa barnaamijkii aan maanta ka duubanay aqoon-yahan Saleebaan Aadan Maxamed waxaan dilayaa anigoo ah Bostiiqo Faarax intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh